Ülkemizde bayağı bir Somali bir misafir kardeşlerimiz var. Burada ihtiyaçtan dolayı bir kuaför salonuna ihtiyaç vardı. Dankeena Somali badanaa joogaan oo dhaa oo soo galay waxayna u baahdeen kuaför Somali in laga furo wadanka. Sabir'in hanım burada bu ihtiyaca karşılık çok iyi bir salon açtı. Sabir'in walaashayna Sabir'in wax badanaa aa ula dadaalay mid ugu fiican u furnaa. Hiçbir şeyden kaçırmadı, temiz, güzel. Wax ka hakrada wax walba si wanaagsan u sameeyay. Güzel ve çok klas bir yer açtı, çok düzgün bir yer açtı. Meel fiican oo wanaagsan aana u furnay. Bundan sonraki ticari hayatlarında başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun. Wixii ka dambeeyay xaleenana Ilaahay ku caawiyo Ilaahna kula garab galo. Saabiriin Xasan Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed ayaa xarun qaabilsan qurxinta aroosyada, diyaarinta xafladaha iyo adeegyo kale waxay ka furtay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaana garab ku siiyay hirgelinta xaruntan dad u dhashay dalka Turkiga. Bismillahirrahmanirrahiim. Soo dhawaada marti sharafta qiimaha badan leh salonkan ku soo dhawaada Somali African Salon waxaan u furnay baahi jirto oo aan u qabno dhamaanteynba ka jirin salon kale oo ku yaala Ankara. waxyaabaha aan meesha ku qaban doono waxaa ka mid ah aroosada sida loo diyaariyo aroosada xafladaha aroosada maxaan ku dhahaa sida timaha loo dabo ilaan saar qurux badan siyaabo badan oo kala gedisan oo moodela oo ugu dambeeya ah dhalashada ilmaha waxyaalaha aadka ugu muhiimsan xafladaha diyaarinta iyo waxyaalo kale oo aad u tiro badan meeshan ku sameyn doona hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Munaasabad xarga looga jaray xaruntan oo ku taala xaafadda Kislay waxaa ka soo qayb galay ganacsato, waalidiin, aqoon-yahano iyo haween Soomaaliyeed oo dhammaantood si weyn u soo dhaweeyay xaruntan oo Soomaalidu baahi ay u qabtay. Aniga ku hadlaya magaca Sam Turkey Consultancy waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta baahidii ay u baahnaayeen gabdhaha in ay daboolaan gabdho isku tagay oo fikirkoodana uu noqday fikir aad iyo aad u wanaagsan baahidii dadka gabdhaha ay u qabeen in coiffeur la helo qurxinta aroosyada iyo maxaa la yiraahdaa diyaarinta xafladaha in waxyaabo badan ay u sameyn doonaan aad iyo aad ugu faraxsanahay aad iyo aadna u bogaaninaynaa. waxaan leenahay hanaqda burkiyerkan kii Soomaalida ay ku soo hirato waxaa la idinku qaban doonaa shaqooyin wanaagsan sida la idinkaga sheekeeyay waa ku mahadsantii waqtiga qaaliga aan noo soo horteen dadweynaha reer Ankara waxaan leeyahay waa mahadsantiin. waxaan salaamayaa inta meesha timid nin iyo naag wixii joogo waa salaaman yihiin ragga iyo dumarka. anagu waxaan ahay Ruqayy Maxamed Nuur waxaan ku noolnahay Ankara waxaan u baahneen salon Soomaaliyeed maadaama aan salon Soomaaliyeed u baahnayna laba gabdhood oo gabdhahayga ah ayaa salonkan furtay oo la yiraahdo Saabiriin Xasan iyo Fartuun Sheekh Aadan Maxamed. marka waxa labadaas gabdhood furteen mabruuq aan leenahay Soomaalida meeshan joogtona waa soo dhaweynaynaa waa inay walaalahood gacan siiyaan ay u yimaadaan waa wax loo baahnaa. hadhawaada